ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ودرسيين استطبناد كمدها دروستين امتحاناهيد een ugu magac daray waxaanu muslimku mooganaan karin barashadiisuna waajib ay ku tahay darsigeenani waxa uu ku saabsan yahay arin dhamaanteenba aynu aragno waxaan naga qarsoonayna arin dhamaanteenba in sugaysa cidii ay ku dhacdeen hore ugu dhacday cid kalena sugayaal weeyo arinkaasi ay sugayaan arinkaasi isagoo sidaas oo wax dadku ay arkaan in fara badanna ay maqlaan oo warkiisu dhagahooda ku soo dhaco haddana ilaahay subxaana watacaala in fara badan buu ku sheegay qur-aanka kariimka nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam in badan buu ku xusay axaadiidiisa tirada badan ee arintaasi uu kaga hadlay taasina waxay muujinaysaa arinkaasi inuu yahay arin mudan si joogtaa in loo ogaado oo la xusuusnaado marnaba aan la ilaabin oo aan la mooganaan arinkaasi waa maxay inahu lmowtu yaa cibaad allah waa geerida addoomaha ilaahayow waxaynu aragnaa oo subax iyo galab walba aynu aragnaa dad xabaalaha lagu sii wado maxaa dhacay dadkaasi soo kuwii nala joogi jira guryaha inala deganaa way geeriyoodeen macnaheedu waa maxay faaraqat arwaaxuhum ajsaadahum ruuxdii jidhkooda ku jirtay ayaa baxday meeluu ilaahay subxaana watacaala og yahay ayay malaa'igtu inta ay ka saareen ay u qaadeen hada huwa macna almowt xabaalaha aynu aragnay dadka degani waayo waa dadkii geeridu ay ku dhacday waa almaqaabir waa masaakin alamwaat waa dadkii dhintay halka ay degan yihiin in fara badan baa warbayna soo gaara qofkii hebel waa dhintay heblaayo way dhimatay haddana iyadoo saas ay tahay waxaad moodaa inay jirto nooc min alghafla in mooganaana ama ilowa oo in fara badan inugu dhacda oo geeridaasi aynu ilowno waa ta keentay allah subxaana watacaala khaaliqa ina abuuray xogogaalka inoo ah ee arinkeennu aanu ka qarsoonayn inuu in fara badan ina xusuusiyo kulu nafsi daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma اlqiyaama faman zuxzixa can الnaar waudkila اljanaةa faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur allah subxaana watacaala wuxuu yihi naf waliba geerida waa dhadhamin doonta nafahan makhluuqa dhammaantood geerida waa dhadhamin doonaan waa dhiman doonaan ilaahay daa'iqaة اlmowt buu yihi waa dhiman doontaa xataa ilaahay ma odhan waxay taasi tilmaamaysaa geeridu inay tahay wax la dhadhamiyo yaduuqu linsaan miday u qadhaadhahay iyo miday u macaan tahayba labada noocba dadku waa leeyihiin miday khaatimadu u hagaagto oo noloshiisii adduunye wanaag ay ku gebagabowdo iyo miday khaatimadu ka xumaato oo noloshiisii adduunye xumaan iyo waxaan raali gelinahayn allah marka la horgeeya ay ku dhamaatay ku gebagabowdo walikulli minhumaa sabab mid walibana sabab bay leedahay qofka khaatimadu inay u hagaagtaa sabab bay leedahay wanaagiisa hore ayaa sabab u noqonaya inay qofka khaatimadu ka xumaatana waxaa sabab u noqonaya xumaantiisa hore xumaantu ama ha noqoto mid khalaa'iqda ilaahay u muuqato ay arkaan ama mid qofka u qarsoon ha noqoto oo dadku aanay arkahayn ayuha almuslimuuna cibaad allah allah subxaana watacaala wuxuu sheegay geeridu waa mid dhacaysa oo lagama fursadaana waa mid aan qarsoonayn warkeediina waa haynaa indhahana waa ku haynaayo mar walba waa arkaynaa xabaalahana waa dul maraa in badanna waa inoo muuqdaan laakiin arinta muhimka waa maxay maada bacda almowt geerida maxaa ka dambeeya
dadku waa wada dhimanayaan geeridu waa waxay wadaagaan oo kullu ibn untha wa in talat salamatuhu fa huwa yawman ala alatin hadbaa mahmulu mid kasto hooya ay dhashay in kasto badqabkiisu uu dheeraado oo adduunyada maalmo uu taxtaxaasho maalin maalmaha kamida naxash baa lagu qaadi doonaa ilaa ay xagee lagu wadaa ila alqabr haddii cid aasta uu helo oo meel lagu aasi karo uu ku geeriyoodo oo cid aastaana ay joogto markaas halka la geeriyo waa qabriga godka aynu aragnay baa loo qodaa iilkaas ayaa laga sii dhex sameeyaa halkaasaa la dhigaa isagoo kafanta ku duuduuban halkaasaa lagu xidhaa kadibna ciidda ayaa lagu damsiiyaa waa laga dhaqaaqaa isaga iyo camalkiisa ayaa loo kala tagaa waa mid ay dadku ka siman yihiin laakiin taan laga sinayn waa maxay waa natiijada ka dambaysa maada bacda almowt geerida maxaa ka dambeeya xabaaluhu waad aragtaan dusha waa ka siman yihiin boqoradii iyo madaxweynayaashii dhintay culimadii kuwii akniyada ahaa iyo fuqaradii kuwii wanaagsanaa iyo kuwii xumaa dhammaantood tasaawow jamiican dusha waa kuwaa ka sinaaday waa godka ciidda lagu guray dhagaxanta yaryar dusha laga saaray saasi aad arkaysaan laakiin xagga hoose ayaanay ka sinayn qaarkood natiijada geeridoodu waxay noqotay natiijo wanaagsan oo lagu farxo qubuurtoodu waxay noqotay rawdatun min riyaad aljanna beer ka mida beeraha jannada gogol baa jannada looga keenay neecawdii jannada u soo gelayso daaqad baa looga furay qabrigoodii baa janno ah qaarkoodna qubuurtoodu waxay noqotay xufratun min xufari niiraan god ka mida godadka naaraha walciyaadu billaah waa lagu cidhiidhiyey qabrigii waa ku madow yahay albaab baa looga furay naarta kuleylkeedii iyo qiiqeedii baa uga soo gelaya gogol naareed buu ku jiifaa imtixaankii qabriga lagu weydiiyey ee malaa'igtii allah u soo diray ay ku weydiiyeen ayuu ku dhacay qofkaasi qofna aqoon uu u lahaa su-aalaha la weydiinayo quri badbaadin mayso aqoon ictiqaad iyo aaminsanaan camal iyo dhaqan taas ayaa qofku uu ku badbaadaya allah wuxuu aayaddan ku sheegay walaalayaal qubuurta dabadeed dadku inay qaybsami doonaan waxay u qaybsami kuwa naarta laga fogeeya kuwaasi dhab ahaan iyagaa guulaystay iyo kuwo naarta ku dhaca oo ku ciqaamo oo ku kadeedma kuwaasina dhab ahaan way khasaareen noloshooda oo dhami mar haddii halkaa ku dhamaatay way khasaartay faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz ka naar laga fogeeye janno la geliyo geeri dabadeed kaasaa guulaystay maxaa arrinta noocaasa sabab u ah arrinkaasi fadliga ilaah iyo raxmadiisu ku yimi waxaana sabab u ah camalkii saalixa ahaa ee qofka muuminka ee adduunyada intuu joogay uu sameeyey toobadkeenkii toosnaantii inuu naftiisa ka reebuu ka xakameeyey oo kala dagaalamay waxaa ilaahay amarkiisa khilaafsan rabbina subxana wa tacaala ka cadhaysiinaya dadka waxaa daga oo ilowsiiya geerida noloshan adduunyo qaar fara badan baa mooda weligoodba halkan inay joogayaan daawashada guryahooda beerahooda gawaadhidooda dukaamadooda goobahooda ganacsi quruxda iyo dhaldhalaalka adduunye ayaa lu gooya allah wuxuu yihi wama alxayaaةu اdunyaa ilaa mataacu اlguruur noloshan addunya wax kale ma aha waa wax yar horta qofka socdaalkaa ee musaafirkaa wax yare degta uu ku qaatay sahayd oo kale weeye waxaas waxaynu ogsoonnahay qofka meel fog inaanu gaadhsiinahayn wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu اlguruur macnaa yaanay ku dagin se ilaahay uu yihi falaa taguranakum اlxayaaةu اdunya walaa yaguranakum biاllaahi اlgaruur noloshan adduunyaana idin dagin ka dagista badan oo shaydaan la idhaahdo xarkaha dadka u isticmaaliya dabanada u dhigtana adduunyadani ay ka mid tahay yaanu idin dagin ayuha almuslimuun adduunyadan musaafiriin iyo socdaal baynu ku nahay marka hore waynu ogsoonnahay nebiyullaahi aadam iyo hooyadan xawaa halkay degenaan jira inay ahayd aljanna waxa looga soo saarayna warkiisa waynu haynaa waa macsiya waa khilaaf amar ilaahay subxana wa tacaala ay khilaafeen oo doonistii naftooda ay ka raaceen allah baa markii dambe ka toobad aqbalay lakiin arrintaas waxay sabab noqotay adduunyadan in la keeno xaggii laga yimi baa loo noqonaya qof walibana wuxuu kula noqonayaa waxa halkan inta uu joogo uu tabcado ee uu kasbado ayuu kula noqonaya
adduunyadan socdaal inaynu ku nahay waa mid inoo muuqata oo qofku meesha uu socdaalka ku yahay weligiiba ma joogo maalin ayuunbuu ka tagaa wadankiisii rasmiga ah buu noqdaa waa adiga arkaya subax kaste iyo galab kaste iyo habeen kaste qaar inaga mida aynu naqaanay waalidiinteen qaraabadeennii jaarkeennii asxaabteennii ayaa adduunyadan laga sii sidaa naxashkay saaran yihiin dhooliga ama ambalaaska dadka dhintay lagu qaado ayaa lagu sidaa halka la geynayaana waa almaqaabir waa adiga arkay maalin walba xabaale ayaa buuxsama waxaa loo ololeeyaa xabaale kale in la iibiyaa loo ololeeya waa magaalooyin kale ayaa ku hareereysan man sukaanuha yaa degan magaalooyinka kale ee magaalo kastoo la degan yahay hareeraha ka xigiya jihooyinka waxa degan alamwaat aladiina asaabathum musiibat lmowt kuwii ay ku dhacday musiibat lmowt adduunyadani waxay ka dhigan tahay walaalayaal kaalinta shidaalka ee qofka socdaalka ahi uu shidaal kaga shubto dabeetana u dhaafo qofka caqliga lema ka suurtowda inuu kaalinta shidaalka iska agdegu iska agseexo oo iyada daawashadeeda iyo ka shaqaynteeda uu ku mashquulo oo halkii u socday ee musaafirka uu ku ahaa uu kaga mashquulo kama suurtowda taas waa ka sahay qaataa shidaal buu kaga shubtaa hore ayuu uga sii socdaa wahaakada almu'minuun adduunyada waxay u joogaan inay ka sahay qaataan watazawaduu faina khayra zaadi taqwa waxa sahay laga dhiganayaana waa alcamalu saalix kaas ayuunbaa yowma alqiyaama qofka anfacaya adduunyadan oo dhami way dhammaanaysaa maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq wax allaaliyo waxa agtiina yaalla u dhammaanaya allah agtiisa waxa yaalla ayuunbaa harhaya wataraktum maa khawalnaakum wara'a duhuurikum wax allaaliyo waxaanu idin siinay xagga dambe ayaad kaga timaadeen qofka muslimka ahi waa inuu ku cibro qaato geerida uu garanayo og yahay oo arkayo ee uu maqlaayo xusuusnaanteedana waa inuu farabadiyo nebi maxamed calayh salaatu wasalaam wuxuu ihi sida tirmidi wariyey akiruu min dikri hadi min ladaat farabadiya xusuusnaanta ka macmacaanka adduunyo jara qofku inuu geerida xusuusnaadaa oo mar walba ay noqoto nusba cayne indhihiisa mid hortaalla raad fara badan bay noloshiisana adduunyo ta aakhiro labadaba ay ku leedahay xataa wakti looma qabanoo lama odhan maalintii intaasoo jeer xusuusnaada waa xusuusnaan joogto ah ayaa la rabaa qofka muslimkaahi geerida inuu xusuusnaado qofku hadduu farabadiyo xusuusnaanta geerida waxay tahay sabab ugu noqonaysaa ila wuxuu xusuusan yahay geeridii inay sugayso qabrigii waa kan iilkii lagu dabooli lahaa waa kan camalkiisiibaa ugu imanaya hadduu wanaagsanaayo hadduu xumaaba waxay markaa sabab u noqonaysaa xumaanta inuu ka toobad keeno an yatuuba ilى اllah kulamaa zallat qadamuhu rajaca ilى اllah mar kastoo simbiriiraxdo xumaan uu ku dhaco waacidkii ama waaniyihii u weynaa ayaa dul taagan oo geeridiia oo xusuusan yahay allah buu toobad keenaya qofku hadduu xusuusan yahay mar walba inuu dhiman doono adduunyadani aakhiro ka mashquulin mayso bal wuxuu hamigiisa u weyni noqonayaa hamu laakhira aakhira ayuu u sahay qaadanaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka kuwa u caqliga badani kuwaasi inay yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man akyasu nnaas qaala akharuhum dikra lilmowt wa ashadhum isticdaadan lahu dadka yaa u caqli badan oo u fariidsan qofka geerida ugu xusuusnaan badan uguna diyaar garow ulaaئika hum lakyaas dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati اlaakhira kuwaasaa ah kuwii caqliga badnaa iyagaa sharaftii adduunyo iyo maamuuskii aakhiro labadaba dadka uga dheereeyey geeridu waa lagama maarmaan u sahay qaado maanta xaqiiqadeeda waxaa dhadhamiyey oo garanaya kuwa dhintay ee xabaalahaasi ku jira ee iyagu xataa aan ducaysan karin ee inaga ay nala gudboon tahay walaalahooda muslimiina mar haddaynu nahay inaynu u ducayno mar walba oo allah dembi dhaaf iyo raxmad aynu u weydiino nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qabri soo maray waxa uu ihi isagoo saxaabadiisii la hadlaaya miyaad garanaysaan qabrigaa qofka ku aasan waxa hi hebel baa ku aasan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laba ragcadood oo maanta idinka idinla fudud ayuu qofkaasi ka jeclaan lahaa adduunyada oo dhan addunya kulaha laba ragcadood baa ka qaalisan maantana adduunye aada u liidata ayaa laga yaabaa dadka qaarkood laba ragcadood inay uga tagaan ama faralkii ilaahay ku waajibiyey inay ka tagaan iyagoo adduunyada liidata raadinaya xaalkoodu waa sida ilaahay uu yihi bal tu'hiruuna alxayaaةa اdunya wاlaakhiraةu khayr waabqa noloshan adduunyada door bidaysaan aakhiro
aakhiro ayaa idiin wanaag badan, aakhiro ayaa tabaaqiga hadhaysa, wadunya faaniya, adduunyadanina way dhammaanaysa. si aynu u xusuusnaano geerida mar walba, xabaalaha markaynu tagno ee aas aynu u tagno, aynu iska dayno laqwiga iyo sheekada adduunyo, aynu ku cibro qaadano. abu hurayra wuxuu odhan jiray imduu wanaxnu cala alathar, markuu arko qof xagga xabaalaha loo sii wado, sii socda, anaguna raadkiina aanu ku taaganay, waanu idinka dambaynaa. qofka muslimka xaalkiisu waa inuu saasi noqdo. xabaalaha waa in la booqdo, waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi fazuuruuha fainaha tudakiru alaakhira. xabaalaha booqda, waayo qofka aakhiro ayay xabaalaha booqashoodu xusuusinaysaa, qalbigiisuna wuu jilcayaa, allah buu toobad keenaya subxana wa tacaala dib intuu isu xisaabiyo. allah baynu subxana wa tacaala weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa geerida xusuusan oo ku cibro qaata xabaalaha mar walba ay dul marayaan. dadkii qusuurta iyo fiilooyinka iyo bangalooyinka iyo fooqyada deganaan jiray maanta xabaalahaasi ayay degan yihin, halkaasay ku dambeeyeen. qof walibana halkaasi ayuu ku dambayn doonaa. guryahaasaa mudan in la dhisto, in la qurxiyo, in la wanaajisto, in loo sahay qaato, lagaga mashquulin guryahan laga tegaayo ee cid kale ay u hadhi doonto. wajazaakum allahu khayra, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.